xiisadii bariga dhexe ayaa cirka isku sii shareeraysa kadib markii Mareykanka uu qarka u saaran yahay go'aan inuu ku qaato weerar uu ku qaado Iran. Wararkii ugu dambeeyay iyo waliba xiisadaasi oo lagu soo waramayo inay gaartay halkii ugu sareeyay. Iiraaniyiintu oo iyaguna heegan buuxa geliya ciidankooda isla markaana diyaar u ah gantaaladoodu inay ku weeraraan saldhigyada ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe. iyo waliba aqalka cad oo si rasmi ah loo ogeysiiyay in ciidamada Mareykanka diyaar ay u yihiin in weerar iyagu ay qaadaan. Israel iyaguna xogihii ugu dambeeyay ayaan kaaga haya oo ku saabsan Netanyahu oo sidoo kale heegan buuxa geliyay Israel gudaha iyo dibadda weerar iyo waliba weerar celisna diyaar u ah. soo dhawaada channelka subscribe saaro daawadaha si share gare muuqaalka like ku dhiirigeli aad baad u mahadsan tahay. maxaa ka cusub xiisada bariga dhexe halkeesa la kala maraya. warkii ugu weynaa uguna dambeeyay waxa lagu soo waramayaa waqtigan suurtagal inay tahay Mareykanka in talaabo u qaado weerar xooggan uu ku qaado Iran. Mareykanka ayaa dhawaan wuxuu soo diray ciidamada u fara badan maraakiib dagaal diyaarado iyo waliba maraakiibtiisa waaweyn ee USS Abraham Lincoln iyo USS Gerald Ford iyadoona sidoo kale lagu waramayo in ay jiraan diyaarado aad u xoogan sida F-35 iyo F-15 iyo kuwa kaleba in la geeyo saldhigyada bariga dhexe iyo waliba guud ahaan gobolka. wararku waxay tilmaamayaan in wax walba ay muujinayaan calaamadaha haddan iyo ifafaalaha hadda la arkayo inay yihiin faragelin military iyo weerar toos ah oo uu diyaarinayo Mareykanka. waxa la rumaysan yahay haatan Mareykanka inuu u dhow yahay qarkana u saaran yahay faragelin military iyo weerar toos ah. waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in saacado ama maalmo ugu badnaan ay qaadan karto. Iran sidee bay uga hortagi kartaa weerarkaas sidee lagu baajin karaa? waxa lagu soo waramayaa Iran si cad in lagu sheegay inay fuliso shuruudaha ugu waaweyn ee Mareykanka uu hordhigayo. wararkii ugu dambeeyay waxay ku waramayaan haatan Mareykanka in heegan uu geliyo ciidamadiisa isla markaana haddaba diyaar u yihiin oo ay sugayaan go'aanka ugu dambeeya oo ah kaliya in la bilaabo iyo ogolaanshaha ama green light-ka markaa. laakiin sheekada yaab kale waxa waaye saddexdii shuruudoodba wali way taagan yihiin in hoos loo dhigo tayeynta uraniumta, in la joojiyo gantaalada iyo waliba markaa hubka aadka u dheereeya oo ay ku beegsan karto guud ahaan gobolka iyo waliba meelo ka fogfog gaar ahaan gantaaladooda balastiga in gebi ahaanba meesha laga saaro iyo nuclearkii oo halka ugu sareeya liiska kaga jira. sidoo kale Mareykanka waxa uu la kulmaya cadaadis xooggan. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan rag xulafada iyo siyaasiyiin muxaafida in si weyn ay u cadaadinayaan Trump. Lindsey Graham iyo waliba ninka la yiraahdo Gingrich inay hogaaminayaan lagu daray Mike Pompeo ragga ku baaqaya fursadan inay tahay in laga faa'iideysto nidaamka Iran la bedelo. wararku waxay sheegayaan inay doonayaan in si toos ah loo farageliyo weerar xooggan lagu qaado si meesha looga saaro nidaamkan soo jiray ku dhawaad 50 sano isla markaana wadaadada islaamiga meesha laga tuuro. haddaba wararku waxay tilmaamayaan in arintu wada hadalka ay iska ahayd waqti lumis iyo waliba diyaar garow dhanka militariga taasoo dadka intooda badan ay aaminsan yihiin falanqeeyaashuna ay qabaan. Iran haddii ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nuclearka iyo waliba gantaaladeeda balastiga waxay noqon doontaa dawlad iska daciifa taasoo la weerari karo. hadda yaan la weerarin laakiin waxa la tilmaamaya in loo iman karayo waqti una weerarkaasi uu ku iman karo. qaar ka mid ah dadka ku dhow Washington waxay qabaan weerarka military inuu noqonayo mid kooban laakiin haddii ay ka furi weyso weerarka inuu noqonayo duulaan toos oo waqti qaata walow saameyntiisa iyo waliba markaasi sheekada xiisadeedu cirka isku sii shareeri karto markaa. sidoo kale CNN goordhaweyd waxay baahisay ciidamada Mareykanku inay ogeysiiyeen aqalka cad oo ku yiraahdeen diyaar baan u nahay duqeynta Iran. waliba toddobaadkan ay noqonaysaa waqtiga sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. Trump go'aanka ugu dambeeyay qalinka kuma duugin laakiin hadda ayuu diyaar u yahay sida xogtii ugu dambeysay ay sheegayso. waliba waxa leeyahay waxa dhici karta ilbiriqsi kastaba in ay markaasi soo saaraan aqalka cad iyo tiimkiisa go'aanka kama dambaysta iyo waliba in qalinka uu ku dugo saxiixo weerarka markaasi. haddaba waxaa jirta saacadihii ugu dambeeyay in uu la kulmay Trump lafsadiisu saraakiil sarsare oo aad ugu dhow isla markaana kamid ah la taliyaashiisa sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan.
waxaa lagu soo waramaya madaxweynaha Mareykanka in la taliyaashiisa ugu sareeyo kulan uu la qaatay isla markaana laga hadlay xiisadda hadda taagan laba sarkaal oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay warbixin looga gudbiyay wadaxaajoodyadii ugu dambeeyay ee toddobaadkan ka dhacay Geneva maamulka Trump ayaa hadda waxay ku dhow yihiin dagaal xooggan oo bariga dhexe ay ku qaadaan howlgalka military ayaa lagu sheegay haatan in uu noqonayo mid saameyn ballaaran yeelanaya isla markaana hadda waxaa soconaya ololo ballaaran waana ka duwanaan doonaa baa la yiri kii Venezuela haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in haatan ergeyada Jared Kushner iyo Steve Witkoff iyo waliba xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Pompeo iyo saraakiil kaleba in ay hadda diyaar u yihiin marka hore waxa laga dooday arinta nuclearka oo ay heshiiskii Barack Obama 2015 heshiis ka duwan oo aad loo cadaadinayo Iiraaniyiintu sidoo kale faragelin military saddex sababood oo cabsi gelin in markaas looga dhigo kow amaba in ay markaasi toos Mareykanku ugu milmaan oo iyagu u weeraraan geesta kale waxa la leeyahay wax walba waxay muujinayaan in weerarka uu dhacayo wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Israel ay xaqiiqsatay haddaba weerarka inuu bilaaban karo tusaale warbaahintu waxay ku waramaysaa in Benjamin Netanyahu isaguba hadda uu faray ciidamada marka dalkaas heegan la geliyo isla markaana waxa uu yiri 24 saac ugu dambeeyay xiisadu halkii ugu sareysay bay gaartay maadaama sidaas ay tahayna weerar wala filanaya weerar iyo difaacba diyaar baan u nahay halkii ugu sareeyay ayaanu geynay ayaa u leeyahay isla markaana ciidamadiisu uu isagu u sheegay wararku waxay tilmaamayaan elbrasi kastaba in rasaastu ay dhici karto isla markaana toos loo weerari karo geesta kale Iiraaniyiintu lafsadoodu ma sahlana waxay haystaan gantaalo aad iyo aad u halis badan oo aan sahlanayn waliba waxa leeyahay halkee laga weerari karaa wararku waxay tilmaamayaan in ilaa hadda Sacuudigu uu diiday wadamo kale xulafo ahna ay diyaar u hayn inay weeraraan geesta kale Urdun iyo waliba marka wadamo kale oo Azerbaijan ay ku jirto iyo kuwa kale xulafo ayaa la tilmaamaya in la weerari karo Israel halkaas ay ka weerari karto Mareykankana sidoo kale laakiin sheekada xiisaha badan waxay tahay Imaaraadku ma ku milmi doonaan mise lama garanayo ilaa hadda wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in goobihii marka ku yaaleen warshadahoodu uranium-ta lagu bacriminayay in loo sameeyay gaashaan shub ah oo la doonayo in laga hortago duqeymaha ma cadda umuurtu siday noqon doonto laakiin warshadaheena iyo goobihii kale shub ayaanu ka dhignay gaashaamo ayaan u sameynay bay leeyihiin waan sugi doonaa lama garanayo fadlan haylaami channel subscribe inaad saartid muuqaalka sii share garaysid saaxiibadaada la wadaagtid meel kasta oo aad joogtaan Ramadaan Kariim